canuga xaafadan ayaa korisa. runtii mas'uuliyadda xanaanada iyo koriinka carruurta waxay sahlan tahay markii reerka ay isku dhow yihiin oo hal xaafad ay wada degan yihiin ayagoo iskaalmaysanaya. mahmaahda uga caansan ee Afrikaanka ah ayaa tiraahdo canuga xaafad ayaa korisa. runtii maanta reerka Soomaaliyeed ee halka xaafad deganaa ma jirto, gaar ahaan bulshada ku nool diasporada, taasoo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan waalidiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan hooyooyinka. gabadhi markay dhasho la umul bixin jiray oo ayadoo baansan oo la qurxiyey oo cilaan loo soo saaray 40 maalmood kadib gurigeeda ku noqon jirtay. ma jirto hooyadii Soomaaliyeed oo umul oo maalmo ah ayaa waxa arkaysaa ayadoo gaariga jiidayso oo hool iyo ku jirto oo wajigeedana ka muuqda daalkii iyo murugada. sidaas darteed ayaa waxaa aad u soo batay baryahan hooyooyin Soomaaliyeed oo ka cabanaya cudurka la yiraahdo postnatal depression, niyad jabka iyo walbahaarka umusha, taasoo murugo badan ku reebta waalidiin Soomaaliyeed, gaar ahaan hooyooyinka. dhibaatada ugu weyn ee cudurkan uu leeyahay waxaa waaye carruurta ayay saameyn weyn ku yeelataa. maxaa yeelay waxaa la ogaaday hooyada hadday murugsan tahay, carruurta saameyn weyn ayay ku yeelataa dareenkoodii iyo markay koraan. carruurta markay yar yihiin xitaa hadday hadalka baran waa ogyihiin hooyadoodii inay murugsan tahay iyo in kale. sidaas darteed ayaa waxaa mar walba muhiim ah inay arkaan hooyadoodii oo faraxsan oo firfircoon oo nadiif ah. marka sidaas darteed ayaa waxaan ku waaninaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah, inaad nafsadiina ogaataan oo markaad dhashaan is nadiifisaan, is qurxisaan si carruurtiina ay idinkaga heebaystaan hadduu Ilaah yiraahdo. hadduu murugo iyo walbahaar iyo waxaas jirana dareenkaada kala hadal ninkaagii ama waalidiintaadii. markii aad dareenkaada ka hadasho daawo ayay u tahay cudurkan, laakiin haddii aad qarsato dhibaatooyin badan ayay keenaysaa. xitaa waxaa la yiri carruurta markay arkayaan hooyadiioo murugsan, xataa waxay cudurka la dhahayo autismka ama ADHD-da waxaa keena carruurta oo arkaya hooyo iyo aabbo murugsan ama waalidiinta murugsan ama murmaya. marka waxaa naga waana ah inaad guryihiina aad shidaal uga dhigtaan jaceylka, ixtiraamka, si uu ahaado gurigiina guri farxad leh. carruurta ku soo kortana ay noqdaan carruur mashaacirtoodii sareyso hadduu Ilaah yiraahdo. iimaankiina sugta, dikriga Ilaahay kaalmaysta. Ilaahay ha idinkugu garabgalo koriinka carruurtiina. بارك الله فيكم. وبازي بسوري TV عالمي Universal Somali TV. جزاكم الله خيرا. دعوة وعن